ciyaarta dunida ee sanadkan 2022 ee ka bilaabantay dalka Qatar oo la filayo inay noqoto bilowga guusha islaamka oo sidee bay u noqonaysaa meesha waxa ka dhacay wax cajiib ah runtii waxa laga yaabaa dhammaan dadku markay halka ay indhaha ku hayaan inaad fiirinayso baraha bulshada baad ka aragtaan aad fiirinayso dal hebel baa guuleysanaya ma anigu dal hebel baan guusha soo garan ma anigu dal hebel baa laga badiyay ma anigu hebel iyo dal hebel baan taageersanahay qofka ثقافة إسلام ثقافة صومالية له صحن مسكح صحة ميشاس كما فيرني وحو كفيرنا يا قول كلي أيات جرتا أو تاكوين بالواحد قياستا عيار والكامر كمية لغا سمعيو دونيدا أو إسكتنان وحي إيشا كو هايسا برتاس إيشا كو هايسا برتا وحا لغا سمعيو أما لغا أخريو سامين وحي سمعين سيا دونيدا أو دان بالواحد قياستا مليونيس iyo millions dunida jooga oo meesha u jeeda oo weligood aan maqlin akhriska ama waxa uu yahay quraanka alle waxaad qiyaastaa millions aadan tiradooda qiyaasi karin oo maqlay islaamka hore ama quraanka laakiin fikrad khaldan ka aaminsana diinta islaamku waa sidan waa sharciyo waxa ma sameyn kartid waa argagixiso waxbay laysaa waxbay dishaa dumarkay ay sidan u gashaayo xuquuqda ku dad wax noocaas ka aaminsana oo kaliya TV-ga u warrami jiray ayaa marka dunidan reer galbeedku waxay ku fiican wax weeyaan waxbay maqlayaan shay markay maqlaan way google garanayaan way baarayaan buugta maxaad qiyaastaa millions qof markay waxan maqlaan oo isweydiiyaan waxan muxuu yahay waa islaam quraankan macaan muxuu yahay waa islaam waxay raadinayaan maxaan ku raahdaay waxan horta muxuu ku saabsan oo islaamku waa maxay oo quraanku waa maxay bal waxaad qiyaastaa intee qof ayaa ilaahay idinka ku soo islaami karta dadkan le 500 baa dulba islaamay kun baa isla ku dambaabin ma ogid inta qof soo islaamay laakiin farxadeenu waxay tahay ama taynu ku farxana ama guusha islaamku waxa weeyaan war message kan meesha waxa la sameeyay oo ay runta ay diyaariyeen la qarasiye in maxaa la yiraahdaa shacairta islaamka oo dhan adinkii ayuu qofkii maqlayaa waxa shuruuc baa la soo dejiyay oo la diiday maxaan ku raahdaa qamradii in la cabo oo iyana su'aal dhalinaysa oo islaamkan diiday qamradii muxuu yahay su'aashaas waxay saameynaysaa in millions ay waxan search gareeyaan kadibna xaqiiqada soo ogaadaan قرآن بماشي لقى آخرية مليون سؤال سويدين سؤال واحد معان محيو قرآن ومحويها بالأنبارو كدبنا إيه أجانا يعني حقيقة واحد هاي كدبنا إسلامية وحلقة بين سويدين سؤال ترو إسلام كدنيا حلي بحوك لها وكتلين شري إمك قال بهايسر هي القلبيات بهايسر ترو إسلام كان قرمون نقونا إياه أما الدنيا سنة وكتلين إياه ومركلك وروح يكون حيرانتها هالمالين ومحان كره هذا قوتها أدونك إسلاميا كلية وهل مرة مريكان كو إسلام كقاطو UK روسيا محن كردا إسلام كقاتان كلية ويبا دين إيجا بعد إسلام كمركز هرمود نقونيا وتاجيريا هذا ميل فوق بعك الرادين بقى حبها والولد جوش وإله سبحانه وتعالى مركو قلت له قالوا إيه ربي وهل ما لنا كل عكرتها كل سموجي مركو حرجينا إن شاء الله تعالى كل مركو ويرتها أرنتاسي سابين وين مركو إنه تجوش إنه واتاس maaha idal hebel baa guuleystay iyo kooxdeedii baa laga guuleystay waxan waa wax yar laakiin waa in guul ku noqotaa millions for first time in quraanka maqleen oo wala macnihiisana maqleen wax kamid ah oo kadibna ay raadinayaan la su'aal baad ku abuurtay maskaxdooda millions inay maqlaan maxay aadaankii waxan muxuu yahay quruxda badan kadibna bal ay raadiyaan xogta soo ogaadaan kuwa fara badan oo kamid ah islaamaan guusheenu waa taas marka ma aha meesha naaga cad baa yimi sidana la yiri waxyaabo fara badan runtii aan wanaagsan meesha way ka dhacayaan khasab because kumaankum qof baa meesha iskugu imaanaya oo diime kala duwan dhaqamada waxyaabaha meesha ka dhacayo I don't get taas maaha laakiin waa message ka weeyaan meesha la gudbinayo ee ka dhacayo weeyaan marka insha Allah ta'ala waan ducaynaynaa waxaan rajaynaynaa message ka meesha ka baxo ee dunida oo dhan gaaro inuu saameyn weyn ku yeesho waxay sidoo kale ay meesha 10 u noqotay xitaa wad arkaysay madaxweynaha FIFA inuu qaabka ay reer galbeedku u dhaqayaan waa munaafiqnimo ficilana way tahay so 10 waxay u dhigtay qadar reer galbeedka iyo Yurubiyaanka waxay u dhigtay 10 laba ilaawaana
waxay cashar u dhigtay kuwii islaamka ahaa ee cunaqabataynta iyo reer galbeedka la samnaabay cashar u dhigtay war meesha waxbaa ka dhacay nimayo marka waxaan rajeynaynaa saameyn weyn inay yeelato insha Allah taala